السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله سبحانه وتعالى جوكتان با waxaan jecelahay halkan marka hore inaan ka salaamo ra'iisul wasaare Roble iyo wafdigiisa maanta ka soo noqday magaalada Nairobi sida uu ra'iisul wasaaruhu sheegay runtii pressure badan oo dhinaca Kenya ka yimid kadib runtii wuxuu qabtay shaqo aad u muhiim ah wuxuu ilaashaday dignity-giisa iyo dignity-ga ummadda Soomaaliyeed in inta uu Nairobi yimaado halkan saxiix la dhaho next day flight diyaarada qaada yimaadaan arintaas waa diiday waana gobonimo waana the signs calaamadaha lagu yaqaan way leadership-ka waana de habka dawladdu u shaqeyso labada dal waxbay kala tirsanayeen warbal horta wixii aan guddo u saarna labada dhinac aan gorfeyno maxaan ka yeelaa kadib aan tala qaadano arintaas inuu ra'iisul wasaaruhu sameeyay oo noo cadeeyay oo guddigaas heerka wasiir oo labada dhinacba ah arintaas hadda galayaan aad baan u soo dhaweynayaa waxaan jecelahay halkan laba qolaba inaan fariin uga diro haddii alla idmo group waa wasiirada loo xulay inay ka tala bixiyaan la gorfeeyaan xaajada la xaltamaan la galaan heshiis Kenya sidii xiriirka labada wadan hore loogu sii socon lahaa waa sida ay Kenya sheegtay waxa ugu muhiimsan oo iyadu raadinaysa trade waxaan ay ugu yeeraan ama ganacsi kale ma jiro waxa ugu weyn oo ay raadinaysaa waa diyaaradihii qaadka oo loo furo 29 diyaaradood oo daroogada xaaraanta ah keeni jiray subax walba Soomaaliya in dib loo furo ayay Kenya u dan leedahay warku inuu cad yahay fiican annagu maxaan doonaynaa weey su'aasha marka meesha taal qaadka diyaaradaha qaadka oo Kenya laga joojiyaa waa bargaining chipka ugu weyn ama waa hubka kaliya ugu weyn oo week meesha ay ka jilicsan yihiin oo aan ka qabanay haddii loo furayo maxaa loogu bedelayaa maxay nooga bedelanayaan waa su'aal wasiiradaas loo baahan yahay runtii inay aad u gorfeeyaan midda kale Soomaali weligeed bay dhexdeeda isdili jirtay dadna waa la xaaltami jirtay garteedana dad naqsada waa ahaan jirtay ninka caruurtiisii iyo maatadiisii la laayay ninka hantidiisii iyo taleefanadiisii iyo shirkadihiisii halbowlayaasha dhaqaalaha wadanka ahaa la burburiyay ninka hooyo caruurteed la gowracay dad masaakiin oo iska farfadhiyo reebaadiya xoolahoodii dhaqanay iyaga iyo xoolahoodiiba diyaaradaha Kenya laayeen arintaas maxaa laga soo qaadi doonaa wasiirada waxaan leeyahay nimayow idinka gobasha lagu matale garnaqsada dhiigga shacabka Soomaaliyeed oo ay Kenya gumaaday oo ay leysay oo caruurta leh oo ciroolaha leh oo reebaadiyaha leh oo xoolaha leh dadkaas islaamka ee Soomaalida magtoodii uga soo qaado shirkadaha ay burburisay qalabka ay burburisay isgaarsiinta ay burburisay magtoodii iyo dhaqaalihii ku baxay oo dhiigga Soomaaliyeed iyo ganacsiga Soomaaliyeed aha waa in looga qaadaa haddii la ignore gareeyo oo waxba laga soo qaadin waxa adkaanaysa Soomaali inuu maal gashado wadankiisa dal kale inta isaga soo duulo oo la burburiyo hantidiisii iyo muruqiisa uu juhdiga galiyay waxba yahay haddii dawladdu ka soo qaado yaa taxi payer noqonayo wadanka investment gashanaya waa gogashani waa fursad waa isla xisaabtan dhab ah arintan maxaad ka dhahdeen oo dhiiggan Soomaaliyeed oo adaadiseen maxaad ka dhahdeen waa hadal meesha qabta weligeed bay Soomaali ma kala qaadan jirtay nooga qaadan nimanka magta caruurta iyo saqiirka iyo dadka masaakiinta ay laayeen ogaada mas'uuliyiinow ogaada dhayalsiga iyo fudaydsiga iyo wax kama soo qaadid la'aanta haddaynan waxba ka soo qaadin kuwii la dilay kuwii la xasuuqay Kenya ayaad waxaad green light siiseen inay mar kale samayn karaan green light baad waxaad siiseen inay mar kale samayn karaan way ku dhiiran karaan kuwii hore haddaan lagala xisaabtamin maantaan fursad haynaa maantaa gogoshu furan tahay haddaan lagala xisaabtamin way fududaysanayaan inay mid ka labaad
ay sidoo kale u xasuuqaan oo u laayaan wasiirada waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala idin abuurtay jalla wajalaaluhu ka cabsada oo xaqa u heliya maatadaas aad maanta idinku mas-uulka u tihiin oo aad kitaabka ugu dhaarateen inaad ka shaqaysaan wax walbo dantooda iyo dalkooda iyo diintooda ku jirta inaad difaacaysaan ilahay baa idinku dhaarshay maanta u heliya waa dhinteenna lama joogaan kuwa soo socda oo carruurta ah oo halkaas ku noola u heliya oo maanta haddaad gar cadaawan la naqsataan kenya oo aad dhahdaan yeeli mayno saamixna mayno cafina mayno heshiisna ahaan mayno qaadna idiin furi mayno inta aad magdhow iyo raaligelin ka bixinaysaan raaligelin public apology adduunku waa kala qaataa ma jirto waddan ama markii inta waddan isaga soo duula dadkiisa iska laaya carruurtiisa iska baabi'iya reeraha harsanahaya reer cisho inta tukaday daaradda iska fadhiyo tusbax iska haysta oday 70 jir oo Soomaaliyeed muxuu galabsaday what he could be your father abaha buu noqon karaa ninkaas adaa miiska wada hadalka fadhiye ragga wasiirada ergada Soomaaliya ku matalaya shirkaasoo represent gareeya Soomaali qabkeedii lagu matala oo ha noqonina dad xoogaa maaragtay waxaan awowgaa iyo abkaa iyo aabbaha iyo isirka iyo intii Soomaali xornimadeeda u soo dagaalantay waxaysan qaateen ha qaadanina ra'iisul wasaare Roble shaqadiisa waa qabsaday si gobonnimaale uga baxay guddigaas loo saarayo liiskiina iyo madaxyadiina waa la ii soo wadaa waa public information buu noqonayaa ilma adeerayaal Soomaali u heliya war kuwa soo socda u heliya maanta haddaad gar cadaawan naqsataan oo aad nimankaas tustaan inaysan waxani socon karin inaan loo aqdul qaadan karin waxaa adkaanaysa in mar dambe lagu soo degdego reer Soomaaliyeedo gurigoodii fadhiya in diyaaradaha Kenya qaxiyaan laakiin we are brothers the relationship is back haddii inta la dhaha garbaha la isgeliyo daroogadiina lasoo fasaxo gungun dhashaad naga dhigaysaan tomorrowna waa lagu garaacayaa waxba yahay baad noqonaysaa qabkii iyo karaamadii iyo hankii ummadda Soomaaliyeed soo celiyay taasna intaasaan uga baxayaa qodobka ii xiga waa ganacsatada qaadka Kenya nimanka Roble afarta gees ka galay iyo xaawalayda dumarka u badan Roblow asxaabul qaad duulka uu bixiyay aniga idinku waa iska warqabnaa aniga idinku waa iska warqabnaa ilaahay u noqda oo business xalaal ah oo idinkaga nasteexa badan oo idinkaga qabow oo uu qalbigiina ku degan yahay oo aad ka soo xajin kartaan oo aad sadaqa kala bixi kartaan oo aad kafanta haddii lagu maanta taadii timaad kafantaada laga gadi karo walaalayaalow raadsada dal shisheeyaad joogtaan fursadaad haysataan Soomaali baa ka wada ganacsata billaahi calaykum dalkaas haddaynan waxba u tarayn oo aynan investment iyo maalgashi iyo ka shaqaysi kale aynan ka shaqaysanin ilma adeerayaalow naga daaya 29 diyaaradood oo sunta cagaaran wada oo duqeynaya magaalo walba xaawalayda waliba dumarka ganacsatada boorsooyinka waaweyn leh waxaad ogaataa walaalay guri Soomaaliyeed baa dubinaysa hooyo Soomaaliyeed oo adigoo kala ba ilmadu ka dareeraysa xijaabka hoostiisa because of ganacsigaaga awgiis carruur Soomaaliyeed baa qatan because ganacsigaaga awgiis gob baad gelaysaa reeraad kala dirteen walaalayaalow ganacsi kala raadsada ilaahay darti uga taga rabbiga idin abuurtay dartiis uga taga xodxodashada iyo campaign-ka aad wadaan waa la socdaa aad iga dhaqaale badantiin waad galgal badantiin wasiiradoo dhan maxaniyahaad ka haysaan waa ogahay laakiin aniga ilaahay baa ila jiray ingiriiskana waa idinkaga badiyey Soomaaliyana maalin ay noqoto maalin
ilaahay waa naga joojin doonaa insha allah. laakiin taadii intaysan imaan adoo xaaraantaas kula jira, hooyooyinka gabdhaha walaalaheeda soomaaliyeedo ragga laysimada lahow, war ilaahay abuurtay u baqo, ummaddan u tura, diyaaradaha aad ku soo kicinaysaan ka daayey iyo kambeynka aad ku jirtaan. intaasaan idinkugu soo koobayaa. aad baana idiin salaamayaa asxaabta meelaad joogtaanba. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.